Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay meel walba oo dunida aad ka joogtaan. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay khudbad ka hadlaysa nadaafadda. Dhegeysi wacan. Topic khudbad about ku saabsan the sanitation nadaafadda. Surely run ahaantii the sanitation nadaafadda is half of the face waa iimaanka barkiisa, as our prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sida nabigayna Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, told us inoo sheegay. The sanitation nadaafadda is good for waxay u fiican tahay our family qoyskeena, our service nafsadaheena, and our environmental iyo deegaankeenaba. Nadaafaddu waxay u fiican tahay qoyskeena, nafsadaheena iyo deegaankeenaba. Owintu sidaad wada ogtihiinba, where there is garbage meeshuu qashin yaalo, there is disease cudur ayaa yaala, and where there is hygiene iyo meesha nadaafad taalane, there is health caafimaad ayaa yaala. So sidaa darteed, if you want haddii aad rabtid to far away inaad ka fogaatid from disease cudurka, let us keep aan ilaalino the sanitation nadaafadda in any site dhan waliba. See you later. Is aragti dambe. Bye bye bye. Mac salaama.